maadaama ay dallada hana dallada ayada kaligeed wax ma qabato jaalidaha ku hoos nool ama ku hoos jiro oo member ka ah ayaa qabto tuulo kasto ama magaalo kasto shaqooyinka ka soo qabtaan ayaga garab istaaga wiilasha oo shaqo la'aanta ama dadka cusub ama dadka oo laga soo bixiyay kaamka oo la dhax Soomaali mintihid inay ayaga ko u tagaan shaqada marka saas ay loo kala leeyahay annaka manihin dad directly dadkii la xiriiro oo dhibaataysan waxaa la xiriiraan dadka dhibaataysan jaalidaha annaka darbarnaga annaka laakiin waxaan nahay daladii oo isweyneed oo la xiriirto wasaaradaha iyo projectiga soo dhacayso macnaha annaka waxaan nahay institution u dhaxeeyay dawladii iyo Soomaalida marnaba annaka haddaan nahay daladii Soomaaliyeed ma galno arrimo ku saabsan wax ka hor imaanaya ko islaamka marlabaadna diinteena iyo dhaqankeena ka hor imaanayo wixii diinteena ka hor imaanayay ayaan iska ilaalinaa markastana dhaqanka Soomaaliyeed iyo tan ugu weyn aan ilaalino waa diinta islaamka saa og tahay caqabado badan baa ka dhaco wadanka doorashooyin baa la galaa marka annaka markasta waxaan isku daynaa in aan maxaa lahaa meel kasta aan Soomaalida garab istaagi karno inaan garab istaagno laakiin sa hore ugu sheegay baahida Soomaaliyeed hal qacan ma buuxin karto efsan kaligeed ma buuxin karto laakiin efsan waa inay isku daydo inay four track role ay leedahay ayada ay jiido ay dadkii la xiriirto marka waa isku daynaa wixii kalaan keenay inaan dadkii garab istaagno horta hore waa efsan waa institution soo jiray more than 10 years marka maanta in aniga dhaho kan iyo kan baan ay la gaarto guul xoogaa waxay ugu tahay ceeb iyo guul darnimo efsan waa dalad jirto roolkeeda qaadato kana ka soo baxdo shaqadeeda aan u rajayn doono inay waxyaalo badan ummadda Soomaaliyeed ay garab istaagto ayna markastana ay maxaa lahaa موقفك إسلام كي موقفك الصوماليات أي دفاع ده markii la dhaho wasaaradaha iyo institutionka oo dawladda horta hore mala awaal ma ka hadli karno qofna si wuxuu yiri qofna si uu fahmay inta maanta anaka aan joogno waa muddo kooban sida wax u wadnane iyo sida la leeyahay iyo sida ay jirtaba dadka way dhihi karaan inay NGO gooni dad u furan ama laakiin waa wax ku as ummadda Soomaaliyeed ceeb taabanaysa dadaalka ummadda Soomaaliyeed ay maanta wado dada meelo kala duwan ugu yimaado oo waxaan dhahno fiisabilillah ku shaqaysto oo markastana waqtigooda oo qaaliga maxaa lahaa aqligooda u huro inay ummadda Soomaaliyeed u istaagsanaadaan ay u soo dhiciyaan waxay ummadda Soomaaliyeed xaq u leeyihiin isku dayaane sida cadaaladdeeda inay u kala dhiibaan marka in la dhaho waa institution dad gooniyo u furan waa waxay taabanaysaa dadkii afsan maalintii la furay ilaa hadda ka shaqeynayo una taagan ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagto marka ani mowqifkaas mana aaminsani wayna dhici kartaan ismalihi marka waxaan isleeyahay waa wax taabanaysa annaka dhan oona la dhihi karo in aad looga fiirsado waa qofti waxaas mowqifkaas aaminsan annaka hadda asoo guddi waxaan isku dayaynaa ama aan rabnaa inay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama Groningen joog ama Maastricht joog 3 saac u dhaxayso almost 4 hours inaan isku keeno ay dalladaas ka mid ahaadaan ay ku faraxsanaadaan inay urur Soomaaliyeed oo yahay oo dalladaasna hoos tagtid oo mar kastana ku difaacayo waxa adiga kaliga ka doona lahayd ministeriyaasha ama wasaaradaha inay annakoo wada group aan ka doonano markaas xataa lagu aamina qof kaligeed socoto lama aaminaye aan isgarab istaagno waxa xaq u leenahay ministeriyaasha aan ka soo dhacsano hala taageerana ururkan oo inta soo sano jiro hadii su'aalo ama critic aata waa wax fiican miiska aan la imaano member ka noqo laga wada hadlo haddana hadaa isdhaysidna waxbaan qaban karaa oo
karti iyo dhiirigelin kugu jirto enjoy the club hadda muddada aan anaka guddi ahaan aan joogno 3 urur way kusoo biirtay kuwa kalena wada hadal aan noo socdo oo aad ugu farxeen inaan groupka hadda maanta imaaday yihiin group dhalinyaro ah maxaa la dhahaa madax bannaan jecel dadkoodana waxay u qabtaan inay ka mid noqdeen xubninta efsan sidaa daraaddeedna ay dadkii gelisay dhiirigelin cusub enerjiyo cusub ay dhaheen annaka waxaan rabnaa inaan ku biirno efsan marka groupka 40 meeshaan joogno wuu ka badan doonaa insha allah website-kana waa wax laga shaqeynayo waxaa jira xataa feelyaal aan wadno efsan haddaa ka mid tahay waa inaan contribution dhiibaa lacag sanadkii ah marka waxaan isku dayaynaa inaan xataa dadkii meesha ururkii hore waa isbedeli karaan email-adii baa ka bixi karo dadka telefoonada bedeli karaan marka waa shaqo aan maalin kasta ku jirno website-kana dad hadday ururo ku qoran yihiin oo inay ka baxeen la sheegay waxa aan xaqiijin kara ma aha waxaa ugu meesha ugu imaanaan ka badinoynaa hadda dadaal cusub baan bilaabnay aadna waxay u mahadsan ilaahay ka sokow dadkii ilaa meeshaan gaarsiiyey oo efsan maanta inay jirto dadaa ka dambeeyey guddoomiyaal kale meesha soo martay maalin hore qof aan aad iyo aad respect weyn u haayo ayaa waxaa la dhahay waxay gaartay lifetideki maxaa laas markay pensionka gaaraysay aan inta mahadcelin buuxo oo janis aan maanta u helay habreertay marka eedaday sahrinnaaleeye oo muddo 30 sano ka badan ururkan u shaqeynaysay la shaqeynaysay meel kastoo maanta ay aadi karta u aado lagama helo ummadda Soomaaliyeed qof 30 sano ka badan hal maxaa lahaa institution u shaqeysay wali taagan ku faraxsan in dadkeeda wax u qabato marka aan dadkaas inaan maanta u mahadcelin kalimaha in taalo loo dhisay ahayd ay ka shaqeysane wax gabdhaha Soomaaliyeed maxaa lahaa ay u taagantaa markasta inay dhiirigeliso ay ka hadasho guryaha maxaa lahaa mishandling maxaa lahaa la dagaalanka guditaanka gabdhaha marka shaqo badan bay ay haysay wali ay noo haysaa advisor ay noo tahay gadaal taagan tahay marka annaka waxaan isku dayaynaa dadka shaqada soo qabtay inay naga bixin ma inaan haysano lugaha in la isku dhigin maaha inay dadka advice noo bixiyaan soo ururka u sii jiro maanta aniga joogo dariiq qof kale ay ma karo in waxa meesha uga tagnay in aniga burburin maaha in la sii wado marka aad iyo aad aan waxaan rabay inaan mahadcelintaas u sameeyo aan isku dayaynane dadka ka soo shaqeeyay inaan isku hayno dad kalena ku soo darno xaalada dalada aniga ummadda Soomaaliyeed wax badan baan ku dhex jiraa u ahaay maxaa lahaa farabeel maxaa lahaa samafale magaalada hadda aan deganahay 6 sano gudoomiye u ahaay Soomaaliya maanta arkaysto ummadda Soomaalida ku dhex bartay aan Soomaaliya ku soo korin Soomaaliga marka waxaan ku bartaba inaan dadka caawiyo waraaqadaha Hollandees ku akhriyo hadhowtina aniga wax ka faa'iido ayakina waxay ka faa'iideen ma anina ka faa'iido marka markasta waxaan jeclahay ummadeyda inta yarista aan aqaan inaan ku kordhiyo marka maadaama maanta oo la dhahay Cabdi Fataaxow ma rabtaa inaa member ka noqotid efsan leesoo bandhigay aad yani igu weyneed aniga jagada doontay aniga waraaqada qortay tartan ka qayb galay intaasna waxay iga ahayd shaqo la'aan miiga ahayn inaan ummadeyda inta yarista aan aqaano maanta ilaahay gudoomiye igmaday laakiin hadii la ilaahataa efsan uu imaa shaqaalo uga noqo musqulaha u dhaq oo u sameey lahay anaka markii la doortay guddiga meesha fadhiyay ama memberka 3 arrin bay noo direen saddexda waxaa waaye mid isla xisaabtanka in oo xisaab ka dhacdo dhexdeena laakiin urur ahaana inay xisaabtiisa ay xiran tahay midda labaadna waxaa noola igmaday in aan maxaa lahaa herforming in la bedelo institution maanta soo ku dhisan yahay markee markasto wixii la dhisay maxaa lahaa 94kii maanta
wuu qaldanaan karaa waxaana aayad ku qoran kitaabka ma aha markaas waa la bedeli karaa marka taasna waa laba inaan bedelno fikirka maanta aan ku shaqaynayno waa fikir 94 ka la dhisay ma jiraa ma soconaysaa marka taas waa midda saddexaadna waxaa waaye in aan doorasho markii la qabanayo aan u qabanno ti cadaalad ah oo Soomaalida dhan xubnaha meesha ka tirsan inay ku faraxsan yihiin marka haddaan usoo noqdo su-aashaada oo dhahaysid xisaabtanka waa waxa aan ku jirno annaka isla xisaabtanno annaka weekii hal mar aan maxaa lahaa teams aan ku kulannaa asal guddi aan ku shirnaa bishina hal mar aan is aragnaa inaan iskugu imaano meel kasta ay tahay marka waxaan waa wax ibska wax u qabso qof walba waxaa ku xariira karfantiisa qoorta ugu jirto waqti la iskuma haayo marka waxaan isku daynaa inaan badanaa is aragno waana iswacnaa WhatsApp group aan leenahay marka energy-ga soo nooga yaraanin waxaan isku daynaa inaan annaka isla xisaabtanno haddana aad waxaan ugu faraxsanahay annaka dad isaqaanan ma ahayn saanaan ku kulannay ilaahay aan isku aadiyey marka waa isku faraxsannaha maanta shaqadana saasay ku wanaagsan tahay efsan horta hore saan kugu sheegay waa muddo wax badan aan soo jirnay laakiin aniga mowqifkayga iyo guddiga aan maanta aan ka tirsanahay waxaan aaminsanahay efsan inay u baahan tahay inay 2026 aan ugu jiraa inaan annaka aadno 2028 aan kasii horumarno dadaalkeena badino aana ku joogin meesha aan maanta joogno projectyaasha maanta aan hayno inaan ka badino taasna ay ugu weyn tahay inaan horta hor ummadaan u shaqaynayno aan isku keenno ay arkaan waxa loo qabanayo ani markaan aan maqli jiray efsan maanta ma ahayn laakiin waxaa la iska rabaa efsan in la maqlin keliya in la arko waxqabadkeeda la arko oona efsan ay aniga waxaan dreamkayga efsan inay lahaata meel ay ayada leedahay hadda maanta ijaaraan ku jirnaa ma jirto ururada oo annakana la mid ah intaas jiro waxay leeyihiin meel ayaga leeyihiin dabaqi ayaga leeyihiin ilmaha meel af Soomaali lagu baro dugsi lagu bari karo dadka iskugu imaan karaan marka waxyaalaha aan rabno waxaa waaye aan aniga jeclaan lahaa inay dhacdo ilaahay ka suko waxaa waaye dadaalkeena inaan gelino inaan farniwing samayno aan maanta projectiga labada saddexda aan haynaa ka badino oo meel kastana aan ku jirno oo dadka cimilada la badiyo laakiin inaan annakana meel aan annaka leenahay ay ummaddeena kusoo hagaagi karaan ay dhihi karaan maanta haddaan meeshaan ka baxo meel Soomaaliyeed aada waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah oo rabana inaan meeshaan fursad aan u leeyahay maanta inaan arrintaas ka hadlo aada u mahadsan tahay waxaan rabaa hadda inaan meeshaan ka bogaadiyo ummadda Soomaaliyeed ku nool Holland iyo Belgium inay ka qayb qaataan hirgelinta ama dib u dhiska guriga Soomaaliyeed oo maanta ku dayacan waddanka Belgium oo annaka dhan naga dhexeeyo waa wax muhiim ah waa wax dhaxalgal ah annaka dhan naga dhexeeyo marka arrintaas arrin u taala keliya ma aha efsan ummadda Soomaaliyeed ay u taalaa waa wax Soomaaliyeed is leeyahay annaka waa ku jirnaa guddiga oo lacag aruurinta waxaa soo socda inaan eventment qabano ummadda Soomaaliyeed iskugu wacno loo aruuriyana siday habboon in gurigaas la dhiso dayactir cusub lagu sameeyo meeshaan waxaan ka bogaadi lahay dowladda Soomaaliyeed oo maanta dadka mas-uuliyadda kow ay ka saaran tahay inay dhulkaan dhul Soomaaliyeed oo yahay inay ayagana ka qayb qaataan ganacsatada Soomaaliyeed oo maanta og dhulkaas dhul inuu ku yaalo dhul gaaleed oo dayacsan oo ognahay mar badan in faraha Soomaaliyeed oo ka bixi rabay marka waxaan dhihi lahay annaka dhan bay mas-uuliyadaasna saaran tahay qof walba oo maanta dhiig Soomaaliyeed ku jiran waxaan dhihi lahay qacmaha hala furo jeebabka hala furo meeshaas annakeena sugaysaa waa dhul Soomaaliyeed dadkana safaaradana dadka meelaha badan bay ka caawisaa waxay xaqiijiyaan qofta inay Soomaali tahay baasaboorada Soomaaliyeed marka safaaradda wax badan bay qabataa waa meel shaqayso marka waxaan dhihi lahay guriga Soomaaliyeed maanta ha laga qayb qaato